qof kasta oo halkan yimaado waxa uu qabay dareen ah in uu ka xun yahay xariga sharci darrada ah ee lagula kacay wariyaha goobjoog Cali Aadan Muumin ka oo maalintii afraad dowladda Soomaaliya u xiran. Cali Aadan Muumin ayaa xukun maxkamadeed oo ku dhacay Arbacadii kaas oo ahaa in xorriyadiisa wariyaha dib loo siiyo maalinka Jimcaha oo ay taariikhdu ku beegan tahay 31 bishan May 2019 balse maamulka goobjoog markii ay tageen xarunta dambi baarista CID-da oo wariyaha ku xiran yahay ayaa lagu wargeliyay in aysan qabin amarkaasi. Iska daba wareeg kadib ayaa lagu wargeliyay in ay isaga tagaan halkani maadaama wariyaha aan la fasaxaynin. Abukaataha u doodayay Cali Aadan Muumin ayaa sheegay in xilligan wixii ka dambeeya Cali uusan ku xirnayn sifo sharci ah sidaas darteedna booliiska Soomaaliya xarigiisa mas'uuliyadda ay qaadanayaan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. قلبت هالكن وحنا شغل نمد إن عن كهذا صفة الشرعية وحرية هي علي آذن مؤمن. أنا جوا عبد الرحمن حسن أهنا قرينك علي آذن مؤمن وكيلنا أجو دعوة هذا الله هستو مستر علي آذن. علي آذن نشان إلى واتنك بيشان يا ورقة CID أسوأ قرط إلى ده هي waxaa ku rabo CID hoggaanka dambi baarista ee booliiska ku rabo warqadaas ayaa loo soo qoray Cali Aadan asigoo lagu eedeynayo Facebook ayaa waxa soo dhigtay imtixaankii dawladdan haya asigoo lagu eedeynayo qodobadaas lagu eedeynayo iyo qodobo kale ayaa Cali Aadan loogu yeeray si sharaf leh ayuu ku tagay sharciga ayuu u hoggaansanaaday CID ayuu tagay mar alla markuu tagayna horaa laga xiray waa la hareer maray nidaamka xiritaankiisa markii Cali waa loo yeeray su'aalihii la rabay in la weydiiyo ahayd Calina hadii loo baahdana markaas kadib warqad maxkamadeed waaran loo soo qaatay si loo xiro cadaaladda loo horgeeyay ma aysan dhihin hase ahaatee waxaa aad iyo aad aan ula yaabnay warqadan Cali 25 yaa loo soo qoray hoggaanka socdaalka CID-da ay soo qoreen Calina 26 ayuu Boston ku sameeyay oo ah imtixaankii aan hayaaya oo warqadaas ah 26 sameeyay su'aasha taagan waxay tahay Cali ma waxay booliiska ogaayeen hoggaanka socdaalka ogaayeen Cali inuu dambi gali doono warkaas oo soo wada miyay ogaayeen taasi ayaa su'aal ka taagan tahay sababtay tahay qafkan muwaadinka ah warqadan oo leeyahay wuu soo boosti gareeyay iyo warqada xiritaankiisa oo leeyahay waa CID loogu yeeray اسمه وافقسنا اسكو تاريخنا ما أهن وحنا هريسة يريتان كيا هريسة تاسوحين وقا أقولت الشك أن لما لا يكرين إن على صفة الشرع الدراء على كحرية علي CID وحي جيين دم بارستا وحي جيين محكمة قبل كبنادر أيه جيين هذه لو هستي يقدبدي لو هستو لبا بقولشان يتبان لaba boqol 89 laba boqol 20 laba boqol 67 laba boqol 68 intaba Cali waa lagu waayay dambi baarihi garsoorihii wuxuu ku qanci waayay in dambiyadan Cali galay dambiyadan ay yihiin dambiye sax ah hase ahaatee garsooruhu wuxuu amar ku dhiibay maadaama Cali uu yiri imtixaankiyan haya hase ahaatee Cali oo si daba dhigay anagoo ilaalinaya booliiska ayaan qaybinaynin garsooruhu wuxuu amar ku dhiibay in Cali la sii daayo markay imtixaanku dhamaado warqadaasi mar alla markii la sii daayay garsooruhu warqadii ayuu qoray waatana oo ku leeyahay Cali ha lagu sii daayo marka uu dhamaado imtixaanka hase ahaatee waxaa la yaab leh Cali inuu weli xabsiga ku sii jiro waqtigii imtixaankina la dhaafay Cali wuxuu ku xiran yahay sifo sharci darro ah qaanuunka aan waafaqsaneyn booliiska CID-dan waxay u hoggaansami waayeen amarka maxkamadda soo saartay su'aasha taagan waxay tahay haddii amarkii maxkamadda soo saartay booliiska ay u hoggaansami waayeen booliisku maxay yihiin ma booliisku maxkamadaha ka sareeyaan oo amarka maxkamadaha awood u leeyihiin inay jibiyaan أسهات على سفشر عذرة وكحرية وحن عصنينا أنا جو قرينكيس علي آذن كان وكيله أرنتانا SGS يسوي حل صارتي سماري جورنال سندك يسوي حل صارتي إن علي وكحرية هاي سفشر عذرة علينا وأبهاي حرية دي ستام كا إلا سيا ما دام
ay ogolaatay in maxkamaddu la sii daayo. booliisku waxaan codsanaynaa inay u hoggaansanaadaan amaamirta ka soo baxday maxkamadaha. haddiise booliiska aysan u hoggaansamaynin amaamirta maxkamadaha ka soo baxday ayadana waa hawl kaleeto. annaga ma garan karna cali sifa sharci darraha uu ku xiran yahay. cod gaaban iyo cod dheer waxaan ku leenahay cali ha la sii daayo sifa sharci darraha uu ku xiran yahay, booliiskuna u xiran yahay. amarkii garsooruhu soo saaray maxkamadda ku soo saaran waa kana. wabilaahi tawfiiq, waa mahadsantihiin dhammaantiin. agaasimaha guud ee Goobjoog Media Group Mudane Xasan Maxamuud Maxamed ayaa sheegay in xariga Cali Aadan Muumin ay ka walacsan yihiin ka goobjoog ahaan, balse uu sheegay in cadaadis ka imaanaya xafiisyada madaxweynaha iyo kan ra'iisul wasaaraha arrintan ay ku lug leedahay. marxim halkan galabtan waxaan soo istaagnay inaan cadeyno in wariye Cali Aadan Muumin uu weli ku jiro xabsiga CID-da oo ku xiran yahay sifa sharci darro ah. maanta duhurkii ay ku ekeyd markii go'aanka maxkamaddu ay xukuntay in la sii daayo. waxaan rabaa marka halkaan soo wacnay inaan dadka aan u sheegno in Cali Aadan uu ku xiran yahay sharci darro, dalbanayna in si cadaalad loo soo daayo. CID-da saaka markaan u tagnay oo aan damacnay inaan wariye Cali Aadan si xorriyadiisu dib u helaan u soo dhaweyno. waxaana loo sheegay inaan haba yaraatee aan la arki karin hataa iska daa inuu xorriyada hele. waxaan lagu yiri ma arki kartaan, laakiin waa hal kadib waxaana loo ogolaaday inaan la fariisano. mar waxaan cambaaraynaynaa inuu weli xorriyad la'aan yahay, markii horena lagu xiray si sharci darro ah oo aan sharciga waafaqsanayn. Cali Aadan waxaa loo wacay CID-da looga wacay si su'aalo loo weydiiyo. asagoo sugaayo su'aalo weydiin ayaa wuxuu la kulmay xarig in xarig loogu bedelo. garsoorka markii la geeyay gobolka Banaadirna waxay xukumeen in la sii daayo Cali. sii deyntii inuu amarka maxkamadda fulina wuxuu fulilay. waxaan tuhunsannahay marka in taliska booliiska uusan dhexdhexaad ka ahayn arrinka Cali Aadan Muumin. waxaan kaloo tuhunsannahay in arrinkan ay lugaha kula jirto hay'adda fulinta, gaar ahaan xafiiska madaxweynaha iyo xafiiska ra'iisul wasaaraha. waxaan codsanaynaa hay'adaha cadaaladda iyo kuwa isla xisaabtanka sida baarlamaanka iyo hay'adaha xuquuqul aadanaha u dooda iyo kuwa kale ee madaxa bannaan ee ogol madax bannaanida dadka iyo xorriyadda hadalka inay soo falgariyaan arrinkan si loo helo xorriyad saxaafadeed oo madax bannaan. maanta markaan u tagnay CID-da maanta maysan jooginin talisku maysan jooginin oo talis maana haleelinin, laakiin dhalinyarada meesha waxay noo sheegeen Cali inuu xarig yahay, ayaana loona sheegay inuu la fasaxayo, aysanna soo gaarin go'aanka maxkamadda. waxaan dib ula xiriirnay hay'ad maxkamadaha. waxaa loo soo diray warqaddii dadkii keenaya way u keeneen. waxay warqaddan waa idinkan 29 in soo gaartay, way u filaadeen. waxay dhahaan annaka amarkaas marna soo gaarin, hoggaanka taliska laanta CID-da u taga, annaka ma galna annagu. xogayaha ururka suxufiyiinta qaranka Soomaaliyeed ee Nusaj Mudane Maxamed Ibraahim Nuur Macallimo ayaa dhankiisa sheegay in uu ka xun yahay xariga lagula kacay wariye Cali Aadan Muumin, isaga oo dalbaday in hay'adaha garsoorka ay mar kale arrintan soo farageliyaan. bismillaahi raxmaani raxiim. waxaan bahda warbaahinta Soomaaliyeed iyo Goobjoog Media Group aan la wadaagaynaa cambaaraynta ay u jeedinayaan ama sida ay uga xun yihiin xariga iyo xabsi ku haynta weli sii socota ee wariye Cali Aadan Muumin oo la xiray isla markaana maxkamadda gobolka Banaadir ay amartay in la sii daayo. waxaan rajaynaynay oo aan filaynay qof walba in uu ka sareeyo sharciga, isla markaana booliska Soomaaliyeed ay u hoggaansamayaan sharciga. waxaa muuqata in sharcigii la iska baal dhagatirayo oo aan maaragtay la tixgelinaynin wariye Cali Aadan Muuminna uu ku sii jiro xabsiga. sidaa darteed wixii hadda ka dambeeya waxay u muuqataa in ay tahay fal caburin ah, mid lidi ku ah xorriyatul qowlka oo la doonayo in lagu ragaadiyo, lagu caburiyo saxaafadda Soomaaliyeed. haddii wariyaha Soomaaliyeed sharciga la horgeeyey sharciga uu amray in la sii daayo, waxaa qof walba ay tahay sida annagu aan aaminsannahay in xorriyaddiisa dib loo celiyo. laakiin ma dhicin, marka way sii socotaa xarigiisii. sidaa darteed waxaan la qaybsanaynaa murugada iyo xanuunka dhammaan cid kasta u dabqanaysa. waxaan ku baaqaynaa in si degdeg oo shuruud la'aan loo sii daayo wariye Cali Aadan Muumin, maadaama uu yahay wariye Soomaaliyeed
wixii loo qabsaday iyo eedaymihii loo jeediyay dhammaantoodna markii maxkamadda la horgeeyey ay noqdeen kuwa aan qof maaragtay lagu soo xiri karin maxkamadduna ay amartay inuu yahay bilaa dembi sidaa darteed waxaan dalbanaynaa in si degdega loo sii daayo dhammaan suxufiyiinta halkan isugu yimid ayaa muujiyay dareen ku aadan sida ay uga xun yihiin xariga lagula kacay wariyaha ay mihnad wadaagga yihiin kaas oo dowladda Soomaaliya muddo 4 maalmood u xiran maanta waxaan nahay dhammaan wariyaashii ka howlgalaya magaalada Muqdisho TV-yada warbaahineeda kala duwan waxaan iskugu nimid xarunta Goobjoog Media Group waxaan ka xunahay xariga loo geystay walaalkay Cali Aadan Muumin oo ka tirsan wariyaasha Goobjoog Media Group oo maalintii afraad sifa sharci darro ah ugu xiran dowladda federaalka ee Soomaaliya waxaan dalbanaynaa in Cali xorriyadiisa loo soo celiyo maanta halkan waxaan isugu nimid annagoo wariyaal aad u badan inaan muujino dareenkeena ku aadan sida aan uga xunnahay in wali dowladda xabsiga ay ku sii haysa Cali Aadan Muumin oo maxkamad ay fasaxday isla markaana lahaay warqadii lagu fasaxay dowladda waxa ka dalbanaynaa in sharciga la ilaaliyo maadaama dowladdu iyada ay tahay cidii sharciga ilaalinaysay sidoo kale CID waxa ka dalbanaynaa inay ilaaliyaan amarka ka soo baxay maxkamadda isla markaana Cali ay sii daayaan Cali si sharci darro ayuu wali ku xiran yahay annagana hadii aan nahay wariyaasha ka howlgala magaalada Muqdisho waa ka xunnahay in Cali wali xabsiga lagu sii hayo waana cambaareynayna Cali Aadan Muumin ayaa looga yeeray xarunta dambe baarista CID-da maalintii Talaadada ahayd balse markii halka uu tagay ayaa lagu wargelay in xarig uu yahay maxkamad ayuu ka soo muuqday maalinkii Arbacada iyada oo lagu xukumay in maalinka Jimcaha ilaa 6 saac laga gaarayo uu xabsi uu ku jirayo balse waqtiga wixii ka dambeeyay uu xir uu yahay booliiska Soomaaliya ma aysan dhowrin xukunka maxkamadda ka soo baxay taasi oo muujinaysa in wariyaha wali xabsi uu ugu sii jiro iyada oo sifa sharci ah uusan ku xirnayn Maxamuud Alxaaji Goobjoog Muqdisho.